kulan wanaagsan daawade halkan waa Ilwareed News haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar halkan laakiin inoo taa muuqaaladan soo gelino dhiirigelinayno tahay waxaan ku soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamka muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa qaab dhismeedka xisbiga Xasan Sheekh Maxamuud ee loo qaybsaday nidaamka 4.5 liiska magacyada dadka ku jira xisbigan ayaan ku soo gudbin doonaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa xalay ka qabsoomay munaasabad si rasmi ah loogu daahfurayay urur siyaasadeedka cusub ee cadaaladda iyo wadajirka oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kuwa dowlad goboleedyada dalka xisbigan uu hogaamin doono Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay sameeyay bandhig aad weyn waxaana ka qayb galay erga ka badan 2700 oo ka kala timid daafaha dalka isla markaana ka mid ahaa xubnaha rasmiga ah ee urur siyaasadeedka waxaana sidoo kale la shaaciyay hoggaanka sare ee xisbiga iyadoo loo kala qaybsaday nidaamka 4.5 gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxa waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Saadi Yaasiin iyo markaasi ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ay ka yihiin ku-xigeenno halka xogayaha guud loo magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen erga ka badan 2700 oo ka kala timid daafaha dalka isla markaana uu markaasi ka mid ah xubnaha rasmiga ah ururka siyaasadeedka ayaa lagu ansixiyay dastuurka iyo sidoo kale xiroosaadka ururka iyada oo sidoo kalena la doortay xubnaha guddiga fulinta iyo gudoomiyaha ahna musharaxa ururka shirweynaha waxaa kaloo markaasi hadal jeedin ka sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor madaxweynaha maamulka goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen hogaamiyaha SSC Qaatumo Cabduqaadir Axmed Aw Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir gunaanadkii xubnahan uu shirweynaha uu doortay guddiga fulinta ayaa kala ah 1 Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha ururka siyaasadda ahna musharax 2 Xamza Cabdi Barre gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda istiraatiijiyadda iyo sidoo kale qorsheynta 3 Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo markaasi dowlad goboleedyada 4 Saalax Axmed Jaamac gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha 5 Marwe Saadi Yaasiin Samatar gudoomiye ku-xigeenka arrimaha horumarinta iyo bulshada iyo wacyigelinta 6 Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa xogayaha guud ee ururka JSB ayaa loo magacaabay arintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo markaasi maamul goboleedka Jubbaland hogaamiyahooda Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe uu ka deeriyay in ururkaasi la sameeyo isagoo ku tilmaamay in ururkaasi uu eg yahay sida kii kacaanka oo kale isla markaana aan suuragal ahayn madaxweynuhu uu riyoonayo ururkani ayaa waxa uu markaasi noqonayaa mid jawaab kulul siinaya hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo hore uga hadlay arintan dhinaca kale maamulka Puntland ayaa iyaguna ka soo horjeeda in markaasi nidaam noocan oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqo iyadoo sidaas lamid ah uu ku dhawaaqay shirweyne markaasi looga tashanayo aayaha Soomaaliya hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadar xoogan waxa uu gelinayaa ururkani isagoo doonaya in markaasi doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ay ka dhacdo inkastoo deegaano badan oo markaasi maamulada dalka aana ku qanacsanayn haddana waxa uu rajeynayaa in hawshaasi ay noqoto mid suuragasha shirweynahan waxa uu noqday mid ay ka soo qayb galeen erka ka badan 2700 taasi oo ka dhigaysa inuu yahay mid si rasmi ah u daafurmay isla markaana dhaqan galaya JSB waxa ku midaysan madaxda dowlad goboleedyada qaar iyo sidoo kale madaxda sare ee dalka iyadoo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba ay si rasmi ah markaas uga qayb yihiin guddiga ururkani shirweynihii xalay ku soo idlaaday magaalada caasimadda ah Muqdisho wuxuu fariin rasmi ah u dirayaa hogaamiyaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland kuwaas oo ka biyo diidan sidoo wax wado hogaamiyaha talada haya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud